dunidan horumaraysa ee meel sare higsanaysa nin walba hankiisba lagu hoodo maalaa oo libin lagu haleela hablaha Soomaaliyeed haniga higsiyeesha dhalinyarada wiilasha runtii in badan bay la soo xiriirtay waxay weydiinayaan maxaa anagina noogu talagashay marka waxaan runtii leeyahay dhalinyaro wiilal iyo gabdho waan jecelahay dhamaantiin waxaad tihiin runtii gaashaankii iyo garabkii aan iska kaashan lahayn dhisida Soomaaliya cusub waxa la yiraahdo sida ay u kala sareyso ayaa loo kala qaadaa marka gabdho iyo wiilal hadba meeshii aan gaabis ku dareemo markaas ayaa ila haboon in aan dhiirigeliyo oo wax u sheego oo hoga tusaaleeyo sidoo kale meelna idinka ma jiraan waa walaalihiin iyo xaasaskiinii iyo gabdhihiinii oo dhiiriday adinkeena dib idin kugu soo noqonaysaa buugan sababta igu dhalisay ee ah gabdhaha hankooda in uu hooseeyo maxay u dhacday maxay gabdhuhu yacni hankooda uu hooseeyaa ayaan yacni baaray oo aan fikir galiyay waxa ii soo baxday mid kamid ah mawaadiicda buugana aan kaga hadlay oo la yiraahdo niyad jabinta bulshada buugana waan kaga hadlay haweeney baa tahay waxaan ma sameyn kartid ma qaban kartid ma yeeli kartid yacni sababo badan baa jira oo gabdhaha yacni hankooda inuu hoos u noqdo ama yacni meeshii laga rabay uusan ahayn sababo badan baa keena marka midaas ayaa kamid ah marka la joogo halkaas oo bulshadu yacni gabdhaha ay yacni ama ay gacan bidixayn ku sameeyso ama garanaysa aysan dhiiri gelin gabdhuhu waxay u qaybsamayaan laba qaybood qayb hore oo karti iyo dadaal la timid oo doonaysa caqabad kasta inay ka gudubto iyo qayb ayadu yacni ma garanaysa is dhiibtay oo u jilicday isla markaasna waa qaybta uu buugan sida adag ula hadlayo oo uu dhiiri gelinayo haddaba buuga waxaan ku soo qaatay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka hortaagan inay noloshooda isbedel ku sameeyaan oo ay meel sare gaaraan waxaana kamid ah daawashada musalsalada mowduuc dhan oo musalsalada aan kaga hadlay ayaa buug ka hadlay runtii wiilasha bulshadeena yacni saameyn ballaaran ayuu ku leeyahay daawashada musalsalada taxanaha ah ee waqti fara badan yacni lagu bixiyo sidoo kale waxa kamid ah caqabadahaas isticmaalka faraha badan ee balaha bulshada social media maanta wuxuu noqday iyo yacni caqabadan kale aan ka hadlayo daawashada musalsalada meesha ugu halista badan oo dhalinyarada guud ahaan waqtigooda dila isla markaasna uu ku dhinto marka waxa kamid ah caqabadaha gabdhaha ka hortaagan in ay horumar noloshooda ka gaaraan buugga waxaan ku soo qaatay oo aan kaga hadlay qiimaha waqtigu uu leeyahay ayaa sidoo kale kaga hadlay wiil kasto aad doonaysid iyo wax kasto aad qabanaysid hadii aadan waqti u hurin oo daqiiqado noloshaada kamid ah aadan siin runtii kama guul gaari kartid sidaas daraadeed fariin kasto aan buugteeda ku dirayo labadoodaba waxa saldhig u ah qiimaha uu waqtigu leeyahay iyo ahmiyadiisa waayo hadii aad garanaysid qiimaha waqtigaaga iyo daqiiqadaha noloshaadu ay kugu fadhiyaan waxa aad garanaysaa sidii wax ku anfacaya adiga naftaada wax u taraya aad uga faa'iideysan lahayd sidoo kale buugga waxaan kaga hadlay qiimaha aqoontu ay u leedahay gabar doonaysa inay isbedel samayso waxa doonaysa inay isbedel samaysid waxa doonaysa inaad noloshaada guul ka gaartid maxay tahay qiimaha ay ku leedahay in aad aqoon yeelatid muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya horumarka shakhsiyadeed iyo aqoonta sidee bay aqoontu yacni kaaga caawin kartaa guul kasto aad gaaraysid runtii waa arrin si weyn tahay xiriirka ka dhaxeeya buugga ayaan kaga hadlay waxaan qoray 2014 buug halkaasna kaga muuqda dareenka wadaniga la yiraahdo buugan uu ka horeeyay mid kan ayaa soo gadaal ka soo baxay laakiin buugaas wuxuu ahaa buug mar hore aan bilaabay 2014 markaan bilaabay jaamacadda koowaad ayaan buugan qoridiisa bilaabay oo ay ugu dhalatay inaan bilaabo waxay markii ugu horeysay magaalada Gaalkacyo ka tagay marka wadaniyadu waxa weeye waa dareen uu ku dhihan yahay dal jacayl iyo dad jacayl waa rabitaan geesinimo leh oo muwaadiniinta qaarkood ay laabta ugu qaadaan dalkooda waa dareenka ku xambaaro qofku inuu u damqado dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa waa jacayl ku qarsoon laabta qofka oo ku dhaliya shakhsigu inuu si firfircoon ku jirto ugu hagar baxo uguna adeego dalkiisa buug waxaan kale oo kaga hadlay bulshada iyo wadaniyada mowduuc la yiraahdo oo ballaaran ayaan kaga hadlay waa mowduuc aad u ballaaran laakiin waxa ugu muhiimsan markii yacni 5 sano oo aan markasta u kuurgalay oo aan baarayay wadaniyadu waxa ay tahay oo qof kasta oo wax igu dhaama aan weydiinayay iyo meel kasta aan yacni u marayay in aan wax ka helo si oo bulshada aan ula wadaago wadaniyadu waxa ay tahay waxa ii soo baxday 3 qaybood ayaan waxaan u qaybiyay bulshadii markii aan observation sameeyay waxa qaybta koowaad noqotay koox si cad loo dareemay heerka wadaniyadooda yani bulshada waxaan ku wadaniyada aan ku saleynay ayaan 3 u qaybiyay waa kooxda koowaad oo koox si cad loo dareemay wadaniyadooda iyo dal jacaylka waa wadaniinta dhabta ah ee dalka ka damqada waa kuwa aan sinaba ku qarsoomin yani qofka wadaniga dhabta ah ee daacadda wadankiisa iyo dadkiisa u ah ma aha mid qarsooma waa kooxda halyeeyga aan u naqaan ee ka dhiidhiya dhibaatada wadanka haysto inta soo baxo yani bulshadii badbaadiya tusaalena SYL ayaa noogu noqon kara iyo koox labaad oo ku qarsoon yahay wadaniyadu baan bulshada u qaybiyay koox labaad waxa jirta iyaduna wadaniyadu ay ku qarsoon tahay dal jacaylkii kooxdan way leeyihiin wadaniyad laakiin sida kuwa hore oo koowaad uma firfircoona waa kuwa si fudud shucuurtooda wadaniyad lagu kicin karo oo looga faa'iideysan karo waxa inta badan
ay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada wadaniyeed salka ku haya laakiin waxay jecel yihiin in looga horeeyo oo ayagu yani inta meel istaagaan ma soo bixi karaan laakiin hadii aad yani wax looga faa'iideysan karaa in yani inta la kaashado wixii wadanka wax loogu qaban kara ama wixii laga difaacayo yani laga kaashado waa kooxaydu mar walba diyaar u ah si looga faa'iideysto oo dhexdhexaad ayadu ah laakiin aan lahayn awood ku soo baxdo ay wadanka yani wax uga qabato sidoo kale waa koox wadan jacayl iyo wadaniyad isu midna isu ku jiraan oo wax la xaw ah aan dalkooda u hayn waa kooxda inta badan halaaga iyo dimidaabiyada ummadda tara waa danaystayaasha naxariista daran kuwa aan u naqaano waa kuwa aan ka daalin bulshada in ay bulshada iyo dadkooda in ay dhibaateeyaan ayagoo aan cidna kala jeclayn waana kuwa annagu aan u naqaan calooshoodu shaqaystayaal magacaas ayaa bulshada u bixisay wax uu yani keer gareynayo ma jirto wax uu kala jecel yahay ma jirto waa koox mar walba yani ayadu danaheeda gaarka ah fiirsata oo bulshada aan wax yani naxariisana u gelin wax wanaag ah aan u sameyn waxa tusaale noogu filan dadka badda iyo dhulka ummadda wada leedahay iibsanaya ma oran karno wax wadaniyeed ay leeyihiin haba yaraatee